gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee baarlamaanka Puntland ayaa waxa uu maanta soo xulay gudida qabanqaabada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland waxaana gudidaasi isla maanta ansixiyay baarlamaanka Puntland oo cod fartaaga markaasi ku ansixiyay waxaan naga soo gaartay gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee golaha wakiilada dowladda Puntland magacaabis guddiga doorashada guddoonka golaha wakiilada golaha wakiilada dowladda Puntland magacaabid guddiga doorashada guddoonka golaha wakiilada gudoomiyaha kumeel gaarka ee golaha wakiilada markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 63aad markuu arkay xeerarka golaha wakiilada qodobkiisa 5aad farqadiisa 4aad markuu tixgeliyay baahida loo qabo magacaabista guddiga doorashada guddoonka golaha wakiilada wuxuu magacaabay guddiga doorashada guddoonka golaha wakiilada oo magacyadu hoos ku qoran yihiin xildhibaan Ismaaciil Cabdi Abtiile gudoomiye xildhibaan Cali Axmed Saalax xubin xildhibaan Cabdisaaq Xasan Ciise xubin xildhibaan Axmed Jaamac Diiriye xubin xildhibaan Fuaad Abshir Axmed xubin xildhibaan Cawil Xasan Daad xubin xildhibaan Maxamed Barre xubin guddiga doorashada guddoonka golaha wakiilada waxaa kaalinaya kusimaha xogayaha guud ee golaha wakiilada Cabdishaaq Xiddig Warsame iyo Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Maxamed xoghaynta guddiga golaha waxaa ku saxiixan Xuseen Yaasiin Xaaji Diiriye gudoomiyaha kumeel gaarka golaha wakiilada waana saxiixay guddiga cidii mataqaanaa codka siinaysa gacanta tag guddigaas la magacaabay guddiga doorashada inaynu ansixino cidii ala gacanta la taago yaa ka aamusay yaa diiday waxaan furayaa inay saalka soo istaaga ilaa saxiix gudidan ayaa noqonaysa gudida qabanqaabada iyo waliba socodsiinta habsamo socodka doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo maalinta Jimcaha lagu wado in lagu doorto hoolka baarlamaanka Puntland Zakariya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News Garowe.